sidaan u ordayay oo dhinacyadii aan u fiirinayay ayaa waxaan waayay albaabkii aan ka soo galay. Dabadeed dib ayaan u laabtay. Waxaan arkay albaab oo iftiin yar ka soo baxayo. Albaabkii haddaan gudaha u galay waa boqol goglan. Aad u moodaysid in aniga lay diyaariyay. Aniguna daalkii ayaa iga batay. Waxaan is dhahay halkaan iska seexo oo subaxdii isaga tag. Kadib sariirta markii aan koray waxaan ka seexan waayay cabsidii faraha badneed iyo waxyaabihii aan arkay. Qolkii aan ku dhex jiray ayaa waxaa iga soo muuqday albaab madow oo cabsi badan leh. Waxaan is dhahay Cabdulaahiyow waad riyoonaysaa bal iska seexo. Waaga hadduu baryana meeshaan ka gala. Dabadeedna waan ka soo jeestay albaabkii. Kaalay adiga seexo. Maskaxdayda waxaa ka guuxayso albaabka maxaa u gali weysay oo maxaad u ogaan weysay albaabka waxa ku jiro. Anigoo hurdadii iga soo dhicila ayaa waxaan eegay saacadii misana waa 2:47 daqiiqo oo habeenimo ah. Qolkii oo dhan waxaa ka muuqday iftiin yar oo ka imaanaya dayaxa, balse derbiga dhinacaygii bidix ee albaabka madowga ahaa waxaa ka muuqday hoos madow ee aad u moodo qof istaagsan. Kastaba ha ahaatee intaan naftayda celin karo waan celiyay, balse waxaa i gashay jeeso oo fiiri albaabkii madowga. Markaan fiiriyay waxaan arkay hooskii oo dhaqaaqaya oo si tartiib ah igu soo socda xaggayga. Aad ayaan u cabsaday. Waxaan is dhahay qayli oo bal qof ugu dhow meesha ama marayo ha ku maqlo. Kadib ayaa hooskii wuxuu aaday albaabkii madowga, wuxuuna furay albaabka asigoona wax shanqar ah ka yeersiinin. Qiiq madow ayaa ka imaaday albaabka agagaarihiisa. Kadib gudaha albaabka ayaan ka maqlay cod rag ah oo xoogan oo ileh Cabdulaahiyow waad soo daaday. Qofkii la rabay inaad badbaadiso hadda wuu baxay. Aniga oo gariirayo ayaa waxaan ku dhahay yaa tahay adiga? Maxaadna iga doonaysaa? Kadibna waa laygu qoslay. Weliba waxaa laygu qoslay cod gaaban oo qabow ah. Waxaana laygu dhahay albaabka madow markuu soo muuqdo qof walba wuxuu leeyahay hal fursad. Adigu waad lumisay laakiin waad soo geli kartaa haddii aad diyaar u tahay inaad noloshaada beddesho. Markii aan rabay inaan jawaabo albaabkii ayaa si xoog leh ii soo jiitay. Sida qof in garbaal laga haya camal ayaa garbaal layga qabtay oo laygu riday albaabkii madowga. La soco qaybtii 3.